iyo sidoo kale howlqabadada shirkadda Tolka Fusion. anigu waxaan ku jiray daaqal bilowga asxaabteedana waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku soo dhiiradaan oo ay uga shaqaystaan hab online si ay uga sameeyaan lacag iyo business. imikana waxaan ugu baaqayaa inay ku soo dhiiradaan hooyo kasta iyo aabo kasta iyo dhalinyarada maanta waqtiga joogta waxaa jeclaysa ay u heleen iyagoo guryahooga jooga iyagoo horumarinkooga qabsanaya iyagoo xafiisyadooda fadhiya intaba inay dhaqaale ka samayn karaan iyagoo howlbaanada lagu jiro waxaana leeyahay mahad weyn u celinayaa walaalkeena Soomaaliyeed walaalkeen Maxamed Yaasiin Kowka yahay jeclaystay inuu walaalihiisa la qaybsado nimcada fadhiga loogu shaqaysanayo inay ka faa'iideystaan sida la ajligeed waxaan leeyahay bulshooyinta ama dhalinyarada ama intii aan isku xidhnaynba dhammaanteen aan ka soo qayb galnay kambaniga sida aan uga soo qayb galay ama intii la socotay marka aan uga soo qayb galnay si wacan oo sharaf leh aan uga soo qayb galno wixii aan quudno aan waa shaqo yani aan lahayn riba lahayn. ugu dambeyn agaasimaha qorsheynta ee dawladda hoose ee degmada Burco isaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay shirkaddan iyo shaqaale weynaheeda. dhammaan guuleystayaasha ka soo qayb galay madashan bilan ee maqaamka sare leh runtii waxaan marka la saddexaad u mahad celinayaa shirkadda ama kambaniga la magacbay Tolka Fusion oo runtii awsaaska iyo lahaa dadkan ku guuleystay abaalmarinta inay halka soo keenaan runtii anoo ku hadlay ka magacayga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo mubaaragayaa kambaniga Tolka Fusion. wa Khalid Bakeyle wararka fogaanada xorta ee MMTV. lama daasado lama nadadamiyo dibintayda loo yaruma baa laclaaciyo ladinuma baa nin naftiisa muray faataa lama baa nurani baan hayleelkii baan duura laas qoray baan cano laqi dulmara